magaaladan Mooriyana ay soo jirto Soomaa wala la dagaalamo wala baxsh musaabente Ethiopiana soo galay maxaa lagu sameeyay wala bixi shabaab qabsaday marka xoog badan yihiin dadkan والله ثم والله والله ثم والله والله ثم والله هديسن جورجين وبحنينا halka ku qabo shariifow thumma wallahi dhaartaada halka ku qabo Soomaali baan wax u sheegaynaa Soomaaliya weedi salaamaya waa waaski duqbiro waxa kablow faarax walaalkiis macowkii ka yaraa Bashiir Ballaa mataanayn cadaalada haday ku soo gaarto oo nabad iyo nolol Soomaali xalaal tahay sheergalay cadaladan qofka aad dhageysanaysid hadda maqlaysiin waa madaxweynihii Soomaaliya ee dawladda ku meel gaarka hay'adda midnimo qaran dhaarta u dhaaranaya sheeko uma baahna waa daawanaysiin Muqdisho wuxuu ka xigsadaa muwaadiniinta Soomaaliyeed Muqdisho wuxuu yiraahdaa ana iskale Sheekh Shariif Sheekh Ahmed wadaadka Soomaaliyeed kuma uusan dhalan Muqdisho kuma uusan korin Muqdisho Sheekh Shariif Sheekh Ahmed waxa uu ku dhashay magaalo la yiraahdo Mahadaay waa country saarka dalkeena Soomaaliya waxa raba caawa inay idin soo gudbiyo oo daawataan oo wax badan ka ogaataan ragga mucaaradka sheegtay shirka la qaban doono berrito ama maanta ama caawadan ay ku dhawaaqi doonaan ragga isugu yimid qabaa'ilada ay yihiin iyo qaabkay siyaasadeed wax u wadaan yaan halkan caawa ku gorfeenaynaa hal qabaa'ilada kala kama awood badnaan karo hal qabiile ma sheegan karo dawladnimada Soomaaliya صغيرك سياسة أنقرنين دباشة سياسة الصومالية حسن علي خير وحجر مقدشو ونكاله وحكوفاني قبيل حبتكو تاكتي حسن علي خير قبيلها وحكسو جيدا بيشاوي وحجري وحانا هاي مشرح وتاقن حلك دلك الصومالية وقصريو حسن علي خير مقدشو كما وصندلن حسن علي خير وحاو كل شيء قبل كالقدود تولى يري هذا الجعر حسن علي خير ما هن سياسة الصومالية وبسل معها حسن علي خير وحاو سفر كنت دلك كيا وحاو لكل مي حل بانada Soomaaliyeed ee laga soo doortay waqooyi bari gabar Soomaaliyeed ayaa iseen weysay waxay tiri xasan wuxuu dawladda Kenya weydiistay inay taageerto dawladda Kenya wuxuu ka taageeri doonaa in badda Soomaaliya si sahlan lagu siiyo sagiirka siyaasadeed inuu siyaasadan u bislayn sagiirka siyaasadeed inuu san dabaasha siyaasadda garanayn maanta ay cadaatay qabyaalad baa qaaday wuxuu yiri hawiyaanay in adeerkay hawiyaa yaan waagan xukun ka hayay dambi ka galay qabyaalad baa qaaday iyo qurun baa qaaday wuxuu yiri Muqdisho u nukaale in adeerkay baan u tagi fadhigiisaan ugu tagi waxa weeye raali gelin baan siin away muwaadinki Soomaaliyeed ee u dhibay Itoobiya away jabhadda xoreynta wadaniga Soomaaliya ee uu ku tilmaamay inay argagixisay sagiirka siyaasadeed siyaasadiisu maanta way aasan tahay sagiirka siyaasadeed siyaasadiisu waa la bahdilay shaqayaan ay ahayd uma shaqayaan umana qabtaan waana cilad uu madaxweynaha muxuu ahay oo ka mas'uul yahay asaga la rabo inuu isku soo qalqaaliyo isu keeno celiyo kii xoogaa xadgudub yiraahdo kan kala odagii inuu meesha ka oday madaxweynuhu waa ilaaliyaha dastuurka afka qalad waxa custodian waa qaadimka dastuurka waay ya ku qoran dastuurkay ku qoran tahay meesha inuu saas asigu adeego oo dastuurka horumariyo oo horumaryaha waa ilaaliyaha la dhahay in maanta iska barbar maro oo cid dad kale markay hadee guri waxa la yiraahdaa hadii habarta iyo odaga reerka hadii ay gurbaan tumaan dabcan carruurtan maxay sameynayaan guriga joogtahay faayina ayagana dance ciyaaraan waxba kama duwana madaxweynaha waxa uu sameynayo nin gabar ay kala tageen wali ilmo u dhalaysa waxba kama duwana xaaski ay kala tageen oo furay asoo wali ay xaas u tahay oo kala waay xukuumadda maanta jirta waa saas sharci ma aha waa sharci darro Allahu akbar qofka sida uu caytamay daawanaysheen waa madaxweynihii hore dalka Soomaaliya
mudane xasan sheekh maxamuud oo ku magac dheer xasan qoslaaye xasan sheekh maxamuud qabiil ahaan wuxuu u dhashay beesha hawiye xasan sheekh maxamuud habeen iyo maalin wuxuu u goodiyaa beelaha soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud asoo hadalka sarbeebayo habeen iyo maalin wuxuu u dhaartaa beesha daarood ismaaciil wuxuu yidhaahdaa muqdisho u nukaale waa laydinka saari haddii si kale loo dhigo xasan sheekh maxamuud waxa uu qabiil ahaan sheegtaa in muqdisho isagu leeyahay qofka sheega kara deegaan waa qofka ku dhashay deegaanka xasan sheekh maxamuud kuma uusan dhalan muqdisho kuma uusan korin muqdisho kuma uusan barbaarin muqdisho xasan sheekh maxamuud waxa uu muqdisho soo galay asoo nin weyn oo barbaara qabiilkiisa laakiin waa degan yihiin xasan sheekh maxamuud waxa uu ku dhashay magaalada la yidhaahdo jalalaqsi waa county saarka dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu muqdisho ka xigsadaa oo habeen iyo maalin muqdisho ugu dhaartaa madaxweynaha dalkeenna soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo asoo hadalka qurxinayo oo sarbeebayo ayuu wuxuu yidhaahdaa dadka muqdisho deggan oo markaa uu ula jeedo qabiilka asagu ka dhashay ee beesha hawiye dulqaadkii baa ka dhammaaday qoryihii caddaabaa u aasan qoryaha dhulka ugu jiro qoryaha qaali u noqday waxa uu u digayaa oo u daaranayaa oo u digdig leeyahay waa qabaa'ilada soomaaliyeed weeye hadalka duqbilow ma qariyo daahow ka qaadaa say tahay buu bannaanka u soo bandhigaa ragga maanta shirka jaraa'id qaban doono ragga maanta is ololeysanayo ragga maanta is aruursanayo ragga maanta mucaarad baa nahay leh oo horjoogaha u yahay waa hal qabiil weeye laban hore uga soo hadlay kuwa kalena way ii soo socdaan asaana giddoomiye u ah wuxuu la baxay madasha xisbiyadu la baxay qabiil kale kuma jiro waxaan ka ahayn qabiilkiisa qabiil kale oo soomaaliyeed oo xubin kee ma jiro waxaan ka ahayn qabiilku asaga ka dhashay ee ah beesha hawiye xasan sheekh maxamuud wuxuu soo maray madaxweynihii dalka soomaaliya laakiin wuxuu xirtay shaati qabiil oon xishood lahayn wuxuu yidhi muqdisho kuma dhalan laakiin waan u dhashay waxaan ka xigaa daarood waxaan ka xigaa digil iyo mirifle waxaan ka xigaa isaaq waxaan ka xigaa cid walboo soomaaliyeed muqdisho u nukaale inaan dad dulqaadannahay ixtiraamaya soomaalinimada ixtiraamaya in la siiyo mudnaanta dowladnimada la siiyo loo tanaasulo danta qaranka laakiin hadda moogtahay waxaa soo haray taliskii nabad sugidda iyo madaxtooyada saan sheegnay bu'rada iyo fidnada dalkan hadda waxay noqotay taliska nabad sugidda annaga marka waxaan diyaar u nahay wax walba oo lagu samay karo dadkaas yac lagu dhihi karo ama lagu jooji karo xadkooda annaga miiska kama qaadna miiskay saaran yihiin kumaliyi waxaas waay dadaa loo saaro istiraatiijiyadii hawsheeda ku maqan laakiin annaga waxaan diyaar u nahay dadka soomaaliyeedna dulanka ama dulmiga ka socda inaan ka qabanno ay nimankaas ay wadaan intii loo dulqaadan karo intii loo safri karo intii la xeeri karo waa la xeeriyey waana runta adaab haddan dhahay dadka waxay leeyihin waa hadlaysi nimankii nima dhegaysanayaan marka qaabkay nagu dhegaysan lahayeen inaan la nimaadno waa ku qasbannahay xamdiye bootooy alla booto badanaa raggaad arkaysaan ee booteenayo rag isku qabiila weeye mid ra'iisul wasaaruu soo maray mid madaxweynuu soo maray mid kale madaxweynuu soo maray kan hadda booteenayo ee kula dulqaadkii baa naga dhammaaday wasiir buu soo maray waa ninkii baddayda gatay weeye waa ninkaygii baddii soomaaliyeed keeya u hibeeye weeye wuxuu yidhi muqdisho u nukaale dulqaadkii baa iga dhammaaday waxaan u xil saarnay dad qaase qaabkii loo qaban lahaa dowladda soomaaliya inama ka xasan waa ninkii baddayda gatay weeye inama ka xasan waa ninka badda khayraadkii soomaaliyeed ku jiray keeya ka gatay weeye inama ka xasan wuxuu yidhi dulqaadkii baa iga dhammaaday muqdisho u nukaale muqdisho kuma uusan dhalan cabdiraxmaan cabdishakuur muqdisho kuma uusan korin cabdiraxmaan cabdishakuur muqdisho asoo nin weyn buu yimid muqdisho asoo nin weyn buu yimid cabdiraxmaan cabdishakuur waxa uu ku dhashay magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ee dalka soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur oo soo bandhigaya dalka soomaaliyeed hadduu madaxweyne ka noqdo wuxuu ka qaban lahaa ma hayno
waxaan aragnaa cabdiraxmaan cabdishakuur oo booteenayo oo dhaaranayo oo weliba ku dhaaranayo muqdisho oo caasimadda ummadda soomaaliyeed ahayd inuu dadka ka xigo waxaad daawanayseen ood habeen iyo maalin maqashaan cabdiraxmaan cabdishakuur oo dhaar iyo booto idaacadaha la taagan ha sheego hadduu nin rag yahay wuxuu dalkan u qaban lahaa waan ognahay inuu baddeenna gatay cabdiraxmaan cabdishakuur dhuusamareeb baad ku dhalatay farmaajona muqdisho doorashadii dadbaneyd ee la galay waxaa lagu heshiiyey dalka in loo gudbiyo doorasho qof iyo cod ah aniga markii lay doortay bilii ugu horreeyey waxaan ka bilaabay in aan ka hadalno sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah safar yaa waxaan ku tagnay London conference halkaas oo aad nalagu soo xoojiyey dalka inuu la gudbo qaabkii dadbanaa ee doorashooyinka loona dalka loo wado dhanka qof iyo coda kumiilkoodooda waa ku soo saareen waa ku ballanay kulligeen in dalka loo kaxeeyo dhankaas markii aan soo noqonnay markiiba waxaan sameynay guddi ay ka kooban yihiin dowladda federaalka iyo 5 dowlad goboleed ee xubnaha ka ah federaalka الله والله مدحوينه محمد عبد الله فرماجو مدحوينها دلك الصومالية waxa uu ku dhashay caasimadda dalka Soomaaliyeed waa magaalada Muqdisho madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waa amiirka ummadda Soomaaliyeed weeye arki maysid inay isku qabiil yihiin oo siyaasi ah oo isku xisbi yihiin oo idaacadda taagan oo Soomaali u booteenayo arki maysid madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waa muwaadin hooyooyinka Soomaaliyeed ay jecel yihiin maxamed cabdullaahi farmaajo amiirka ummadda Soomaaliyeed dalkeena Soomaaliya oo god ku jiray ninka ka soo saaray weeye raggaad soo daawateen waa rag qabiil ku booteen waa rag diidan doorashada dalka Soomaaliya inay xalaal ku dhacdo diiday doorasho one man one vote diiday doorashada dadban ay dalbadeen ragga ku qanacsanaan weeye waa ragga qori caaradiisa ku faanayo waa ragga oday islaan caruur cid walba idaacadda soo istaaje ee yiri qabiilka naga